dagaalkii bariga dhexe oo hal mar isgediyey Israa'iil oo cunaqabateyn lagu soo rogayo dalal uu horboodaya Faransiiska uu codeeyey in Israa'iil cunaqabateyn lagu soo rogo hal mar ayay 90 digrii wareegtay xaaladda bariga dhexe maxaa ka jira in Faransiiska uu Iiraan taageerayo kuna baaqay in Israa'iil la dagaalamo Mareykanka oo ka aamusan Israa'iil oo si adag uga hadashay xaaladda bariga dhexe iyo sidoo kale hadalkii ka soo baxay Faransiiska haddaba war ka soo baxay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron hadal ka soo baxay Israa'iil iyo jawaabta laga sugay Iiraan aamusnaanta Mareykanka iyo warbixinada ugu dambeeyay xaaladda bariga dhexe ayaan saxbiyeel eegaynaa taageero degdeg ayay Iiraan helaysaa sida ay tahay iyo xaalka siduu noqon karo ayaan barnaamijkan si gaar ugu eegaynaa muuqaalkeena lagsar wixii aragtay qaybta hoose ee commentiga ayaad inoogu reebi kartaan saxbiyeel soo dhawaada haddii aynu ku bilaawno Mareykanka ayaa si adag markan waxaa looga dhur sugayaa inuu kaga hadlo xaaladda bariga dhexe iyadoo ay kasii darayso guud ahaan markii loo eego xaaladaha isdiidan ee ka taagan bariga dhexe iyo dagaalada cabsida weyn laga qabo ee halkaas ka jiro Mareykanka waxa uu hadda laga sugayaa inuu ka hadlo warkii ka soo baxay Faransiiska ee ahaa in xayiraad iyo go'doon waa la geliyo Israa'iil laakiin Israa'iil war ayay ka soo saartay hadalka ka soo baxay Faransiiska madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku baaqay in cunaqabateyn dhanka hubka lagu soo rogo maamulka Israa'iil sababa la xiriira dagaalka xasuuqa ah ee Israa'iil ay ku hayso marinka Gaza taasi oo keentay in si kulul uu kaga jawaabo ra'iisul wasaaraha taliska Yahuud Benjamin Netanyahu waxa uu malaynaynaa maanta muhiimaddu ay tahay in aanu ku laabano xal siyaasadeed inaanu joojino hubka aanu ku dagaalamayno isla markaana lagu dilay shacabka Gaza Macron ayaa yidhi waraysi uu la sii daayay toddobaadkan bilowgiisa kaasi oo la duubay horaantii isbuucii hore waxaan u malaynayaa in aanu nala maqlin ayuu xusay isaga oo ku sifeeyey go'aanka taliska ah inuu ku sii jiro dagaal inay tahay qalad weyn oo ay dunidu galayso ugu yaraan 41,825 qof oo Falastiiniin ayaa la dilay sidoo kale in ka badan 90,000 oo qofoodna waa la dhaawacay oo haween iyo carruur u badan taliska ayaana dilay markii uu bilaabay xasuuqa bahalnimada ah ee militariga ee 7 Oktoobar ee sanadkii hore lagu qaaday isagoo iska falcelinaya hadalka Macron Netanyahu waxa uu dhaleeceeyay baaqa cunaqabateynta ah inuu yahay mid ceeb isagoo ku eedeeyay in talisku uu iska difaacayo wajiilanimada ilbaxnimada iyo cadowtinimada Israa'iil oo u qabo dagaalkan oo barbar socda talisku waxa uu waday dagaal baan oo loogu hoobtay oo ka dhana Lubnaan sidoo kale weerar lagu qaaday daanta galbeed ee la haysto sidoo kale Suuriya iyo Yemen ayay weerar ka dhaceen dhammaan dalalka ilbaxnimada leh waa inay si adag uga garab istaagaan Israa'iil iyadoo talisku uu wado gardarrada ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa sidoo kale ku eedeeyay in talisku uu xasuuq u geysanayo annaga dartees iyo nabadda iyo ammaanka guud ee awoodda iyo sidoo kale waxaan haysano isagoo raaciyay in ay sii wadi doonaan gardarrada ilaa dagaalka laga guuleysto waxa uu sidoo kale ku andacooday in talisku uu ku soo bixi doono guul la'aanteed taageerada xulafadiisa isagoo ka jawaabaya falcelinta Netanyahu xafiiska Macron waxa uu xaqiijiyay taliska in Faransiisku yahay saaxiibka adag ee Israa'iil Paris waxa ay sii watay taageeradeeda hubka ee nidaamka kadib markii uu bilaabmay dagaalka Gaza inkastoo heshiiska ganacsiga ee hubka ee uu saxeexay wadamada 2014 dowladda Faransiiska waxa ay ku qasban tahay inay joojiso hubka ay u dhoofiso nidaamka markii ay ogaatay in militariga weerarada lagu beegsanayo xarumo muhiim ah oo dad shacab ay ku nool yihiin oo ay ka mid yihiin xarumo xeendaab u ah dad qaxooti ah dowladda Mareykanka iyo Jarmalka iyo dowlado kale oo ay hogaaminayaan ayaa xulafada nidaamkan waxa ay gaarsiiyeen hub iyo malaayiin dollar oo gaaraya tan iyo markii dagaalku bilowday malaayiin taasi oo suuragal ka dhigi karta in weeraro kale ay geystaan dhinacyadu ma oga in weeraradu ay yihiin kuwa saameyn ku yeelan kara nolosha dad badan oo halkaa ku sugan waxaase dhinacyadu ay arkaan fursadaha muhiimka ah ee ka abuuran halkan iyada oo dibadbaxyo iyo weeraro isdaba socda ay halkan ka jiraan sidoo kale Biden ayaa si adag waxa uu Israa'iil ugu booriyay inaysan beegsan goobaha muhiimka ah muuqaal naadir oo uu ka soo muuqday qolka xogta lagu kala qaatay aqalka cad ee Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu ku sheegay in Israa'iil aysan weli go'aansan sida ay ugu jawaabayso weerarkiisa sawaariikhda ahaa ay qaado Tehran wuxuuna ku booriyay Israa'iil in aysan beegsan barnaamijkeeda saliidda Iiraan madaxa xafiiska aqalka cad ee Mareykanka waxa uu ka hadlayaa oo isla markaana uu isku diyaarinayaa qorshaha la doonayo in lagu weeraro goobo istaraatiiji ah iyo sidoo kale meelo muhiim ah taasi oo ka dhigaysa in weeraradu ay sii laba jibaarmi karaan maanta weeraro ayaa dhacay
ururka iska caabinta islaamiga ee ciraaqna waxay sheegeen in diyaarada ay ku weerareen israa'iil. sidoo kale israa'iil waxa ay dhankeeda wajahaysaa caqabado waaweyn iyo weeraro ay kala kulmayso dhinacyada. lubnaan waxay sheegtay 23 qof inay ku dhinteen duqeymo ay geysatay israa'iil. dowladda lubnaan ayaa waxa ay sheegtay in xog dheeriya oo ku saabsan dhimashada iyo dhaawacyada waxaana ay baahisay goordhow muuqaal ay kaga hadlaysa arrimahan kadib markii uu dumay lana duqeeyey duqeymo adagna la gaarsiiyey qaybo badan oo ka mid a lubnaan maalintii shalay ahayd iyo maanta. tirada guud waxa ay gaaraysaa 23 qof oo dhimatay, 93 qof oo dhaawacmay iyo dadkii ugu badnaa oo barakacay. howlgallada ugu badan ee israa'iil ayaa waxa ay ka dhaceen koonfurta lubnaan iyo gobollada bariga ku yaala ee beka la yidhaahda iyo sidoo kale baalbek harmal, waxaana dhammaan ay yihiin dalal ama gobollo ay israa'iil u qorshaysay weerarada inay ka geysato. suurtagalnimada weeraradan ayaa sidoo kale sii laba jibaaraya aragtida ah in ay weeraro dhici karaan. sida ay sheegeen wariyaashu, xaaladda bariga dhexe ayaa aad looga deerinayaa, waxaana socda dadaallo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisaddan. weeraro ayaa dhacay saakay ilaa iminka, waxaana afhayeenka militariga israa'iil daniel hagari uu sheegay in 440 ka mid a dagaalyahanada xisbullah la dilay tanii markii uu bilowday duulaanka dhulka ee israa'iil ay ku qaaday koonfurta lubnaan toddobaadkii hore isniinteedii. waxa uu sheegay in ay jiraan 30 ka mid a madaxda xisbiyada, halka inta soo harta 410 qofna ay yihiin saraakiil iyo askar kale. dhinaca kale xisbullah ma aysan sheegin tirada dhimashada ee xubnaha laga dilay, laakiin warkan iiraan baa baahisay. saacado ka hor ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa khudbad jeediyey, waxaana uu si cad u sheegay in uu taageersan yahay qorshayaashiisa iyo qaabka ciidamadiisa ay u weerarayaan fariisimaha iyo goobaha muhiimka istaraatiijiga ah, waxaana uu baadigoobayaa qaabka muhiimadda ay u leedahay dhinacyada. qorshaha iyo sidoo kale qaabka dhinacyadu ay u raadinayaan waa midda ugu muhiimsan ee hadda waa loo baadigoobayo ama loo raadinayo in isbeddel siyaasadeed oo ballaaran lagu sameeyo, waana dhacdooyinka adag ee suurtagal ka dhigi kara in la laba jibaaro weeraradan. xaaladda bariga dhexe ayaa isbeddelaysa marba marka ka dambeysa, waxaana qorshuhu yahay in ay ka hortagaan dhammaan dhinacyada maadaama ay dhibaato baasan halkan ka jirto. israa'iil waxay rabtaa inay weerarto fariisimaha iyo goobaha ay leeyihiin xisbullah, sidoo kale waxay rabtaa inay weerarto dhammaan dalalka islaamka goobaha ay leeyihiin, haba ugu darnaatay iiraan oo ay xifaaltan adag kala dhexeeyo. laakiin taasi ma ah mid ay suuragal u noqonayso, sababtoo ah waxay dileen in ka badan 150,000 oo qofood oo dhaawac iyo dil isku dara loo geystay. waxay taasi cashir iyo lama ilaawaan u tahay dhammaan dadka reer falastiin iyo dunida oo dhan ee muslimka ah, waxaana qaarkood ay aaminsan yihiin in haddii tallaabooyinka laga hortago la weeqi karo awoodda israa'iil, islamarkaana si toosa looga hortagi karo loogana difaacaya dhinacyada. warar kala duwan ayaa sidoo kale sheegaya in xaaladdu ay isbedeli karto saacad walba, taasi oo suuragal ka dhigi karta duqeymo adag oo ay bartilmaameed u yihiin dhinacyada. ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen, 20 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii militariga israa'iil ay duqeyn cirka ah la beegsadeen masaajid ku yaala Gaza aroornimadii hore maanta. goobjoogayaal iyo saraakiil caafimaad waxay sheegeen inay u badan tahay in tirada dhimashada iyo dhaawacaba ay intaasi ka badan karta maadaama masjidka ay ku noolaayeen dad ka soo barakacay dagaalka Gaza. dadka badan ee ka soo barakacay dagaalka Gaza badankood waxay ku nool yihiin goobaha gambaadka ay ka heli karaan, sidoo kale goobaha waxbarashada ee dhismaha weyn, goobaha isbitaalada ee sidoo kale leh dirbiyada la seexdo iyo goobaha lagu nasto iyo masaajidada, taasi oo ka dhigaysa in mar kale israa'iil bartilmaameedkeedu noqdo goobaha lagu cibaadaysto ama sidoo kale goobaha dadku ay isugu yimaadaan ee waxbarashada, caafimaadka iyo goobaha kale. goobjoogayaal iyo saraakiil caafimaad waxay sheegayaan in ay u badan tahay in tirada dhimashada iyo dhaawaca intaasi ka badan karto maadaama ay masaajid ku noolaayeen dad ku barakacay dagaalka Gaza. bayaan ka soo baxay militariga israa'iil ayaa lagu sheegay in israa'iil ay sidoo kale fulinayso weeraradeeda, waxaana ay fuliyeen weeraro ku sugan kuwa bartilmaameedsan koox ka tirsan xisbullah oo ku sheegan in ay ka howlgaleen waa masaajidka shuhaadada ee al aqsa ee deegaanka la yidhaahdo dayr al balax. weerarkan ayaa imaanaya xilli hal maalin ay ka hartay sanad guurada koowaad ee dagaalka Gaza oo ay biri ku beegan tahay. israa'iil ayaa muddo sanad ah waxay duqeyn iyo dagaal dhiig badan uu ku daatay gowda Gaza. ilaa iyo hadda ilaha caafimaadka waxay sheegeen
in duqeynta Israa'iil ee Gaza lagu dilay in ka badan 40,000 oo qofood oo Falastiiniyiin ah. Dhulka Israa'iil ee Gaza ayaa ka dambeeyey kadib markii Xamaas weerar koonfurta Israa'iil ay ku qaaday 7 Oktoobar ee bishii hore. Sanadkan waa markii labaad ama sanad xiriir oo dhammaaday iyadoo sanadkii labaad uu bilow yahay Brito. Halkaasi waxaa ugu dhintay oo ay dileen ciidamada Xamaas ee jihaadiyiinta 1,200 oo qofood halka ay afduubteen in ka badan 230 qof. taasi ayaa suuro gelisay in isbeddel weyn uu dhaco islamarkaana uu suuro galo dhammaan qorshayaashii muhiimka u ahaa. guddaan saxabiya halkaas aynu kusoo gabagabeynaya barnaamij fureedkeenna tani qaybta kale intaanu ku kulmi doono waa bahda barnaamijkooda leh nabadgelyo.